وسلامتين أصحابتا كسو دوادا موقال عصب وان كاga hadli doono kulanka ugu horeeyay tababaraha cusub ee kooxda Manchester United ee Erik ten Hag ama Erik ten Hag sida loogu dhawaaqo af Hollandiiska kulankii saaxiibtinimada ahaa ee ay la ciyaareen kooxda Liverpool ugu horeyntii ahmiyadda kulanka waxaynu wada ogeyn inuu kulanku ahaa kulan saaxiibtinimo ah sidoo kale kulanka waxa uu kamid ahaa kulamada ay kooxdu iskugu diyaarinayaan xilli ciyaareedka cusub waxaana kulankaas martigeliyay wadanka Thailand oo soo qaban qaabiyay hab koob ah waxayna gudoonsiinayeen kooxdii badisa koob loo yaqaan Bangkok haddaba waxaan wax yar ka taataaban doonaa isbedelka Ten Hag iyo kulankiisii ugu horeeyay ugu horeyntii kooxda Liverpool iyadoo ay labada kooxoodba ku ciyaarayeen ilaa 3 shaxood oo kala duwan haddana waxaad moodeysay inuu tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ciyaarta u qaybiyay 3 qaybood oo 30 daqiiqo u horeeyay waxa uu ku ciyaaray ciyaartoy gaar ah 30 daqiiqo ku xigeenna waxa uu ku ciyaaray ciyaartoy kale halka uu 30 daqiiqo ugu dambeeyayna ku ciyaaray ciyaartoy ka duwan kuwii hore oo kulay weyn wada ognahay inaan tababare lagu qiimeyn ama lagu qiyaasin ciyaartiisa ugu horeysa tababarahaasi ku doonaha noqdo oo xataa in wax la bedelo ama isbedelku inuu muddo qaato oo maaragtay aanu ahayn wax tiro fudud u yimaada haddaba Ten Hag ayaa ku soo galay shaxda tan ah 4-2-3 ah oo ahayd maaragtay shaxdii ay Manchester United ku ciyaari jirtay sanadihii ugu dambeeyay haddii ay noqoto markii uu watay Solskjaer iyo haddii ay noqoto markii uu watay Rangnick iyadoo ay taasi jirto haddana waxaad moodeysay inuu isbedel ka muuqday kooxda Manchester United oo aynu dul istaagi doono saddexda xaaladood ee kubadda kooxda Manchester United sidee ayay u daafacanaysay kooxda Manchester United sidee ayay u weerartamaysay sidoo kale Manchester United sidee ayay markaa ay iyagoo daafacanaya kubadda qabsadaan daafac ilaa weerar ay iskugu bedelayeen ama marka ay weerartamayaan ee kubadda laga qaado sidee ayay daafaca ugu soo laabanayeen haddaba xaaladda weerarka kooxda Manchester United waxa ay ku weerartamaysay laba fikradood labada fikradood oo kala ah weerarka tooska ah oo ahayd inay ciyaartoyda kubadda marka ay gadaal ka soo dhisaan toos u weeraraan goolaha iyagoo ku gaadhaya goolaha kooxda kale baasas kooban taasoo keentay in kooxda Manchester United fursado badan abuurto fikirka labaad ayaa ahaa cidhiidhiga ama barasharka iyadoo uu ka dhashay goolkii saddexaad ee kooxda Manchester United si wada jir ah ayay ciyaartoyda Manchester United u sameeyeen barasharka ama cadaadiska sidoo kale isbedeladii ugu muhiimsanaa ayaa waxay ahayd in Sancho lagu celiyay garabka midig oo ahayd booskiisii caadiga ah ee uga ciyaari jiray kooxda Borussia waxayna arrinkaasi ka caawisay kooxda Manchester United inay hesho isku dheelitirnaan ah dhinaca weerarka iyo dhinaca daafacaba dhinaca kale marka ay kooxdu cadaadiska saarisay waxaad arkaysay inaanay saddexda khad ee kooxda Manchester United inaanay kala fogeyn khadka daafaca iyo khadka weerarka iyo khadka dhexeba inay si wada jir ah uga qayb qaadanayeen marka ay kooxda cadaadiska saariso kooxda kale ama ay barasharka saariso haddii aynu soo laabano xaaladda daafaca waxaad moodeysay inuu jiray isbedel yar balse waxaa jiray waxyaabo badan oo u baahan shaqo iyo tacab badan ugu dambeyntii xaaladda saddexaad ee isbedelka oo ah inay kooxdu iyagoo daafacanaya weerar isku bedelaan oo noqonaysay counter attack oo ay kooxdu marar badan sameysay waxaana ka dhashay goolkii afaraad iyo isbedelka kale oo ah kooxdu marka ay weerartamayso ee kubadda laga soo qaado sidee ayay u daafacanaysay ama sidee ay daafac ugu soo laabanaysay oo waxaynu arkaynay inay xataa ciyaartoyda garbuhu ay caawinayeen daafaca oo ay soo laabanayeen sida Sancho Rashford iyo Elanga iyo ciyaartoydii markii dambe soo gashay Ten Hag ayaa soo bandhigay kulankiisa ugu horeeyay rajo ah inuu wax ka bedeli karo kooxda Manchester United haddaba ma is leedahay Ten Hag waa uu ku guuleysan karaa ama waa uu ka midho dhalin karaa xilka tababarnimo ee kooxda Manchester United